Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxa uu dhashay sanadii 1934 deegaan u dhexeeya Garowe iyo Burtiinle. Waxa uu ciidamada ku biiray sanadii 1950kii asigoo 16 jir ah. Waxa uuna ka mid ahaa dufcadii ugu horeysay ee Talyaaniga tababar lagu qaaday sanadii 1954. 6 sano kadib waxaa loo dilaacsiiyay taliye guuti asigoo 4 sano kadib ka qayb noqday dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya sanadii 1964. Cabdulaahi wuxuu mutaystay bilado asigoo sanadkii xiga tababar u aaday Moscow, Russia. 3 sano kadib waxa uu ku soo laabtay dalka. Sanad kadib waxaa la dilay madaxweynihii dalka, waxaana talada dalka afgembi kula wareegay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo markaas ciidamada hogaaminayay. Cabdulaahi wuxuu ka mid ahaa dadkii afgembiga ka soo horjeeday, waana la xiray muddo 6 sano ah oo xirnaa. Kadib waa laga sii daayay xabsiga iyadoo dowladda madaxa uga dhigtay waaxda gaadiidka ee Fiyaad. 2 sano kadib waxaa bilaabmay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya, asigoo Cabdulaahi noqday hogaamiyaha guutadii ka dagaal gashay Gado ilaa Nigeele. Dagaalkii kadib Cabdulaahi wuxuu ka qayb ahaa afgembigii dhicisoobay ee 1978. Cabdulaahi wuxuu ka mid ahaa ama hogaaminayay saraakiilo u baxsada Kenya kadibna u gudbay Itoobiya oo jabhadii SSF iskugu bedeshay SSDF ku aasaasay. 6 sano kadib xilligiisa jabhadnimadii Cabdulaahi waa la xiray oo dowladda Itoobiya ayaa xirtay asigoo Addis jooga. 6 sano wax ka badan ayuu xirnaa, waxa uu xabsiga ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo dhacday iyo tii Itoobiya oo dhacday. xilligaa kadib Cabdulaahi wuxuu waqti badan ku bixiyay in dib loo helo nidaamka dowladnimada. 2 sano kadib waxa uu deegaankiisa ka aasaasay maamulkii Puntland kuna beegsan 1998. wuxuu waqti badan sii geliyay si nidaam dowladeed loo helo asigoo in badan ka shaqeeyay. 6 sano kadib aasaaskii Puntland, Cabdulaahi wuxuu aasaasay oo dhisay dowladda guumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee Kenya lagu dhisay asigoo madaxweyne ka noqday. xilliga Soomaaliya ama koonfurta oo dhan waxaa ka jiray hogaamiye kooxeedyo caqabad weyn ku noqday nidaamka dawliga ahaa. Cabdulaahi dagaalo badan ayuu la galay asigoo xukunka jooga 2 sano kadib waxaa dilaacay maxaakiimta oo xaaladda sii adkeeyay. Cabdulaahi dadaal badan buu ku baxshay in nidaamka dawliga ah uu marun ka taabageliyo caasimadda oo madaxtooyada dib kursiga u dhigo, waa ay suuro gashay. 4 sano iyo bilooyin uu xilka hayay. 28 Diseembar ayuu xukunka wareejiyay Cabdulaahi. waxa uu yimid Puntland oo uga sii gudbay Yemen oo 3 sano iyo bilo ku noolaa. Cabdulaahi wuxuu ku suntanaa hadal caddaan, geesinimo, wadaniyad, runka sheegidda xaaladda, iyo inuu mar uun doonayay inuu dalka hogaamiye u arko Soomaaliya oo cagaheeda ku taagan. 23 Maarso 2012 ayuu ku geeriyooday isbitaal Amiir Sayid ee Abu Dhabi dhaca, waxaana lagu aasay magaalada Gaalgacyo. Eebba u naxariistay Colonel Cabdulaahi Yuusuf Axmed. waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa aasaasihii Puntland iyo dowladda guumeel gaarka ahayd ee noqotay dowladda maanta jirta ee Soomaaliya.